waxaan halkan ka aqrinaa qoraal ka soo baxay shirka ay maanta isugu yimaadeen xubnaha bulshada rayidka kaasoo ahaa shir daba socday shirar aan maalmahan ka yeelanaynay arrimaha siyaasadda ee la xiriira doorashooyinka arrimaha bini'aadanimada arrimaha amniga ee ku soo kordhay dalka maalmihii u dambeeyay maanta oo taariikhdu tahay bisha Febraayo 21 shir ay maanta yeesheen xubnaha isu taga bulshada rayidka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan culamo diinka odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada ayaa waxaa looga hadlay xaaladda amni iyo tan bini'aadanimo ee maanta dalku marayo sidoo kale shirka waxa uu ugu furmay waxa looga hadlay shirka ugu furmay madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka dowlad goboleedka Galmudug xubnaha bulshada rayidka ee shirka ka qayb galay maanta waxa ay soo dhaweeyeen shirka u furmay madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxayna ugu baaqeen mas'uuliyiinta in aysan mar labaad ku fashilmin in isfaham ay ka gaari waayaan hirgelinta heshiiskii 17 September 2020 la saxay magaalada Muqdisho waxaan ogsoonahay in shirka Dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 iyo shirkii Muqdisho ay hogaamiyaasha talada isugu koobay iyaga kaliya iyadoo dalku ku jiro marxalad adag isla markaana aysan fursad siin dadka talada wax ku lahaa si la mid ahna kan hadda socdo ay isku koobeen iyaga oo kaliya si kastaba ha ahaato ka qaybgalayaasha shirka waxa ay hoosta ka xariiqeen dhibaatooyinka dhinaca bini'aadanimo ee ka jira meelo ka mid ah dalka waxa ayna walwal ka muujiyeen in iyadoo ay dhamaanayaan muddo-xileedka hay'adaha dowladda dastuuriga ay dhalan karto dhibaato deganaansho la'aan siyaasadeed sii socosho dhibaatooyinka bini'aadanimo iyo niyad jab weyn ku yimaado dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda kuwaas oo ku jira dadaalka dib u dhiska dalka sidaas darteed xubnaha bulshada rayidka waxa ay baaq ku soo saareen qodobada soo socda halkan in shirka aan loo kala kicin ilaa la isku fahmo 2 in shirka heshiis dhab ah laga gaaro fulinta heshiiskii 17 September ee la saxay waxaana laga maarmaan ah in shirka la ballaariyo si uu noqdo mid miradhalkiisu xoogeysto in jadwal doorasho waqtigeesan uu ka soo baxo shirka maanta shirka ugu soo Dhuusamareeb madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir in guddiga xalinta khilaafaadka loo daayo go'aan gaarista waxyaabaha la isku qabsado ee la xiriira doorashooyinka xubnihiisana lagu daro xubno khubaro ah kana yimaada bulshada sida culimada ganacsatada aqoon-yahanka iyo indheergaradka kale bulshada rayidka waxay diyaar u tahay la socodka iyo korjeegteynta hirgelinta heshiiska doorashooyinka iyo soo gudbinta warbixino sugan sidaas darteed waxaan soo jeedinaynaa in bulshada rayidka loo xil saaro korjeegteynta iyo la socodka arrimaha doorashooyinka iyo hirgelinta heshiiska 17 September la saxay magaalada Muqdisho lagu saxay sanadka hore in la xaqiijiyo qoondada haweenka ee 30% shirka ka socda Dhuusamareeb inuu xaqiijiyo qoondada haweenka ee 30% in la qabto shir ballaaran oo looga arinsanayo sida looga gudbayo marxaladaha kala guurka iyo siyaalaha wax looga qabanayo xaaladaha aadnimo iyo kuwa amni xumo ee ka taagan dalka lagana fogaado wax kasta oo xaaladahaas ugu sii dari kara ama aan farxad gelinayn dadka Soomaaliyeed ugu dambeyn xubnaha shirka qayb galay ee bulshada rayidka waxa ay u mahad celiyeen beesha caalamka oo suurtagal ka dhigtay in madaxda isugu yimaadaan shir lagu turxaan bixinayo arrimaha doorashooyinka waxa ayna ugu baaqeen beesha caalamka in ay meel adag isaga taagto cid alle cidii caqabad ku noqoto hirgelinta heshiiska 17 September oo ay gaareen madaxda labada heer ee dowladda wabillahi tawfiiq waa mahadsantiin inta ay ku kooban baaqeena